diyaaradda cad ee White Swan waxaa lagu tilmaamaa diyaaradda hurdada u diiday dowladda Mareykanka taasoo walwalka ay ka qabaan awgeed ugu yeedha cadaabta samada. taliska militariga Ruushka wuxuu muddo dheer ka shaqeynayay sidii uu horumarin lahaa ciidamadiisa una casriyeyn lahaa awoodiisa militari si waafaqsan farsamada tiknoolajiyada ee xawliga ku socda iyo weliba baratanka hubka adduunka waana sababta dhaxal siisay inuu maanta ku jiro booska labaad ee kuwa ugu awoodda badan dhinaca ciidamada adduunka sidaas oo lagu sheegay daraasaadii ugu dambeysay ee Global Firepower ay soo saartay. sidoo kale bilaayin dollar ayaa sanad walba uga baxda waaxdeeda militari oo hadda kaalinta afraad kaga jirta adduunka oo dhan. معهد دراسات كعالمية استخلام مجلس الله سوغابي SIBRI ayaa warbixin uu soo saaray sanadkan 2021 ka diiradda ku saaray sida ba'an ee Ruushku maanta dadaalada ugu jiro dhisidda cudud ciidan oo la awood ah hubka militariga casriga ah ee ay haystaan quudaha ugu xooga badan adduunka. waana tan u horseeday dowladda Ruushka hadda inay haysato cudud ciidan oo aad u ballaaran oo casri ah taasoo ka kooban qaybaha kala duwan ee difaaca dhuleed, badeed iyo weliba cirka. intaas waxaa dheer warbixinada caalamka ee lagu qaada dhigo warshadaha militari ee casriga ah iyo hawlgallada horumarineed ee baaxadda leh ee ku baahsan waaxaheeda militari. 10 sano ee la soo dhaafayna dowladda Ruushku waxay kaloo casriyeyn iyo horumarin joogto ah ku waday hubkeeda istiraatiijiyadeed kuwooda ugu muhiimsan iyadoo casriyeyntaasna kuwa ugu caansan ay yihiin casriyeyntii ilaa 60% lagu gaarsiiyay nidaamyada saaran diyaaradaha bambooyinka rida ee Tu-160 oo lagu naanayso White Swan taasoo hadalhaynteedu ay aad ugu dhex baahday militariga adduunka oo dhan dhowrkii sano ee la soo dhaafay. diyaaradaha bambooyinka rida ee Tu-160 ama White Swan waa diyaarado istiraatiiji ah oo xambaarsan gantaalo iyo bambooyin qaarad ka qaarad iskaga kala gooshi kara laguna duqeyn karo Mareykanka gudihiisa. diyaaradan oo la nashqadeeyay xilligii midowgii Soviyeeti uu ku jiray dagaalkii qaboobaa ee dunida waxaa farsameeyay injineer Ruush ah oo lagu magacaabo Andrey Topolov oo caan ku ahaa nashqadeynta diyaaradaha rayidka ah kuwa dagaalka ee militari. waxayna diyaaradan Tu-160 si rasmi ah ugu biirtay ciidanka cirka ee Ruushka sanadkii 1987 si ay u fuliso hawlaha loogu igmaday koona kasta oo dunida kamid ah. walina tirada diyaaradahan ee la soo saaray waa xadidan yihiin oo waxaa la sheegay in 16 xabo oo kamid ah diyaaradahan ka hawlgalaan adeega sare ee ciidanka cirka ee Ruushka kuwaas oo u arka in qayb muhiim ah ay ka yihiin gaashaanka nukliyeerka dalka. waxay sanadihii la soo dhaafay guulo la taaban karo ay ka soo hoysay hawlgallo militari oo ay hawada kula duushay diyaaradaha dagaalka ee dalal badan oo adduunka ah. waxayna sidoo kale ka qayb qaadatay hawlgallada militari ee lagu duqeeyay laguna burburiyay bartilmaameedyo badan oo ay lahayd kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalka Suuriya. khubarada ku xeel dheer diyaaradaha dagaalka ayaa diyaaradan istiraatiiji ee Ruushku samaystay ku qeexay mid la tartamaysa diyaaradda ay haystaan militariga Mareykanka ee sidata magaca B-1B Lancer ee ridada dheer wax ka duqeysa. inkastoo ay qaab ahaan iska shabahaan labada diyaaradood haddana Tu-160 ayaa asal ahaan ka duwan diyaaradda Mareykanka maadaama bambooyinka ku rakiban diyaaradda Ruushka ee Tu-160 loo sameeyay ama loo nashqadeeyay gantaalada oo qaybka ah iyo weliba qaybta kale oo bambooyin ah si kala duwan u shaqeeya. Tu-160 way xawaaro dheereysaa dhererkeeduna uu ka dheer yahay dhigeeda Mareykanka waana diyaaradda qura ee ugu xoog weyn dunida waana tan ugu culus ee hawada sare miisaan ku qaadi karta marka loo fiiriyo diyaaradaha kale ee dagaalka. sidoo kalena waa diyaaradda ugu xawaaraha sareysa isla markaana ugu baalalka waaweyn ee nooceeda ah. Tu-160 waxay tijaabadii ugu horeysay ee hawada ku duushahayd 18 Diseembar 1981 waxaana la soo saaray 1984 wuxuuna Ruushku ugu yeedhaa shimbirta cad ama White Swan halka wadamada NATO looga yaqaano Blackjack. diyaaradan ayaa xaglaha baalasheedu duuliyaha u sahlayaan inuu duuliyuhu si fudud u dooran karo bartilmaameedka uu doonayo inuu bambooyinka ku duqeeyo isagoo markaa u eegaya hadba hadafka iyo weliba xawaaraha ay diyaaraddu markaasi ku duulayso. dhererka bambooyinka diyaaraddu qaadi karto waa 54 mitir halka dhererka baalasheeda oo baalto baalna kaga rakiban buudiga ama haykalka diyaaradda oo kor u dhaafaya 55.7 mitir. waxayna diyaaradda White Swan hadda loo tixgeliyaa mid kamid ah kuwa istiraatiijiga ah ee bambooyinka ridada dheer tuura kuwada ugu wanaagsan sababtuna waa awoodeeda raadaarka sare ee ay leedahay diyaaraddu iyo awoodeeda oo ay ku duuli karto masaafo dheer oo gaaraysa in ka badan ilaa 8,000 oo kiiloomitir. waxayna sidoo kale shidaalka markaa ku jira isticmaali kartaa ilaa 14,000 oo kiiloomitir. xawaaraha ugu badan ee ay diyaaradani ku duuli karto waa 2,200 oo kiiloomitir saacadiiba halka jooga ugu sareeya ee hawada sare ay gaari karto oo uu yahay 16,000 oo mitir taasoo macnaheedu yahay in diyaaraddu awood u leedahay inay ka
sare marto dabaqada sare ee cirka ee loo yaqaano stratosphere oo kamid ah lakabyada sare ee hawada. dhanka kalena White Swan oo wada kulansatay diyaaradda ugu weyn ee dunida markay noqoto baaxad ahaan iyo miisaan ahaanba waxay awood u leedahay inay qaado 10 tan oo isugu jira rasaasta iyo bambooyinka nukliyeerka, waxayna saanado military iyo hubka noocyadiisa kala gedisan u qaadi kartaa meel kasta oo adduunka ah, taasoo ka dhigaysa diyaarad wax ku ool ah oo cadow kastaana walaac gelinaysa. kadib markii dhawaan la dhameystiray casriyeynta iyo horumaradii lagu waday diyaaradda TU-160 waxay diyaaraddu korarsatay awood cusub oo u saamaxaysa in lagu qalabeeyo adeegyo cusub oo ka hortaga kiimikada iyo shucaacyada nukliyeerka. intaas waxaa u dheer oo ay diyaaraddan ku qalabaysan tahay nidaamyada horumarsan ee ka hortaga weerarada elektarooniga, 4 matoor oo ah nooca NK-32 ee jiilka labaad ee lagu farsameeyay gudaha Ruushka, kuwaasoo si weyn u kordhiya waxtarkeeda xilliyada dagaalka isla markaana sare u qaada heerkeeda duulimaadkaasoo gaarsiin kara in ka badan 1000 kilomitir. xeeldheerayaashu waxay qabaan in diyaaraddan casriyeysan ay qaadi karto 12 gantaal oo wata madaxyada nukliyeerka, taasoo culayska guud ee diyaaraddan saaran gaarsiinaya ilaa 40 tan oo hubka noocyadiisa kala duwan ah, iyo gantaalaha nukliyeerka ee nooca KH-55 iyo gantaalada cusub ee ridada fog ee nooca KH-101 kuwaasoo garaaci kara goobo ka fog 3000 oo kilomitir. sidaas awgeed ayay diyaaraddani awood ugu yeelatay inay beegsato bartilmaameedyadeeda iyadoo aan gudaha u gelin amase u qaban raadaarada lidka diyaaradaha, waxayna khubaradu intaa ku dareen in diyaaradda TU-160 lagu hubayn karo noocyo kala dhowr ah oo ka mid ah bambooyinka la hago iyo kuwa kale ee tooska ah. isku soo wada duuba Ruushka ayaa haatan damacsan inuu durbadiiba diyaaraddan casriga ah ka sii iibiyo dalal kale oo dhowr ah oo loo dhoofin doono marka ay isku afkartaan qiimaheeda. wasiir ku-xigeenka difaaca Alex Krivocho ayaa dhankiisa sheegay in ciidanka cirka ee Ruushku ay heli doonaan 10 ka mid ah diyaaradaha istiraatiijiga ah ee TU-160M2 ee casriga ah marka la gaaro 2027. waxaana xusid mudan in diyaaraddan la casriyeeyay ee TU-160M2 ay ku guuleysatay inay samayso duulimaadkii ugu horeeyay ee tijaabada ahaa 2 bishii Febraayo ee sanadkii hore. waa barnaamijkeena xulashada dunida oo markasta kala socotaan Horfadhi Media.